dhulkayagu sabool maaha saxrayo abaar maaha sibeen xumaadna kama dhicin dhulkayagu sabool maaha saxrayo abaar maaha sibeen xumaadna kama dhicin الدكتور مويديو سند وليبا وخير الدكتور مويديو سند وليبا وخير كتريو دلا كرتوفين كشبنا هما هلكتاب شان سبقنا كلنا waxaanu goor barqa ahayd aanu ka baxnay caasimadda gobolka Sool iyadoo xilligaasi lagu jiray xilli barwaaqeed oo ay baadka iyo biyuhuba isgaadheen asaatee intii aanu sii soconnay waxay indhahayagu qabanayeen dhulkoo barwaaqaysan biyaha oo qulqulayay doogii oo isgaadhay xoolaha oo dhogortoodu fiicnayd iyo bilicsamida deegaanka oo ahaa mid aan indhahaagu marna ka jeedsanayn waxaana safarkaasi igu wehelinayay niman dhalinyaro ah oo ka mid ahaa nuur xasan nuur oo isagu ka yimid dalka Canada run ahaantiina aad u xiisaynayay inuu soo arko deegaanka hoolhool oo uusan abidkii hore u arag sidoo kale intii aanu jidkaasi sii soconnay waxaanu dhexda ka sii qaadnay haweenay deegaanka ah oo baadigoob ugu jirtay xoolahooda waana tan iyadoo weydiinaysaa kuray geel jira ah oo markaasi geel waday yarow eedo ilma aadan cabdisagaar maya xoolahoodi ma aragtay yaa ma xoolii barqadii soo maray kaan dadisa haydeen ma xoolii barqadii soo maray baad haydeen ee xagga shee ka yimid وليبا وخير الدكتور مويديو سند وليبا وخير كتريو دلا كرتوفين كشبنا هما هلكتاب شان سبقنا كلنا كتريو دلا كرتوفين كشبنا هما هلكتاب شان سبقنا كلنا جديد بانو مالا ثم البانو قلنا جديد بانو مالا ثم البانو قلنا daawadayaal halkan aanu joognaa waa hoolhool weeye oo ka tirsan gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood run ahaantii ceelkan waxaa markii ugu horeysay la ogaaday waqtigii dawladdii Maxamed Siyaad Barre ay dalka ka talinaysay siba maalmihii ugu dambeeyay ama cimrigeedu markii uu soo dhamaanay waxaanu jecelahay mustaqbalka dhow haddii Allah awoodda leh ogolaado in holhol ay noqon doonto meel loo soo shaqo tago caalamka oo dhan la isaga yimaado lama huraana waxa noqon doona inaanu dad badan weydiin doono fiisayaal iyo baasaboorro waa marka ay wax isku dubadhacaan sidaas iyo daawasho wanaagsan gobolka Sool iyo Sanaag
laba faras xagee joogay midna watay daraad laba lagu soo xidhay shalay laba lagu soo xidhay wabaadi doona watay geel ka lumay daawadayaal halkan aanu maraynaa waxay u dhaxaysaa tukarraq iyo holhol waxaana xilligan ku dahay roobab aad u laxaad leh kuwaas oo noqday kuwo biyadhiga dhammaan dhulkan aanu hadda soo marnay oo dhan waxaa ka dhacday nimco ku sug barwaaqo ku gaadh waxaan halka wada joognaa nuur xasan nuur oo isagu ka yimid waddanka Canada markaa waxaan jeclahay inaan su'aal weydiiyo nuur sidee baad u aragtaa deegaankan halkan aanu joogno imika وفعناها وحكوا فعنا كندا هذا كفعنا هاي فاميلي قاعدين هكنا جوجان يوم ماشي عدلا كتر تجنا هاي هذا حاركنا هال أويل والكادنا حاركنا بور أو كتر جولد دايموند ها يا كان يهذا أنا قال عبي معنا واي مكانت يوم كهكني ما تنا عبتي واي we just left this morning from Hal and it was very good in the oil well, and we saw a mountain with gold in it, golden diamond. Yeah. And soon when I came, there's 2 deers, a boy one and a girl one in my grandma's house. And I really like this place except from Canada because there's more family here. And we saw when we were going to Hal, we saw a fell down car that was flipped over. Flipped over car and baby goats and camel. Okay. When we just came from here, we were thirsty, so we drank camel milk. And camel milk, it's very good for you, and it helps your blood cells. So drink it. waa tahay in saaka subaxnimadii ayaanu ka soo safarnay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ee caasimadda waxaan u soo anbabaxnay dhankaas iyo dhulkii khayraadka deegaanka Ilaahay ku manaystay gaar ahaan holhol oo runaantii dad badan ay maqlaan waxaanu jecelahay inaan sawir muuqaal ah aan idinku soo bandhigno waxyaabihii aanu kala soo kulannay intii aanu safarka ku jirnay gaaban ee u dhaxeeya Laascaanood ilaa holhol waxaanu haatan joognaa camp yar oo la yiraahdo Beyla oo halkaasna cabaar ku yar nasanayno xooga caana geel oo freshna ragga qaarkii waa isku hubsadeen goordhowna waxaanu u diyaar garoobaynaa sida aanu u sii dhammaystir lahayn safarkayagii oo ku siman ilaa iyo Laascaanood waxa kale oo jecelahay inaanu sii marno tukarraq oo aan doonayno inaan kula kulno qaar ka mid ah odayaasha deegaankaas oo haddii ay noo suurto gasho haddii kalena hore ayaanu u sii wadanaynaa safarkayaga sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh